kulankan oo ay ka soo qayb galeen odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda magaalooyinka Burco iyo Laascaanood ayaa saaga ka qabsoomay hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood waxaana kulankan goobjoog ka ahaa Maxamed Siciid Dahabshiil iyo culimaaddin aad fara badan waxaana ujeedka kulankani ahaa sidii uu ganacsade Maxamed Siciid Dahabshiil uga dhaaran lahaa dilka kiiska marxuumad Saada Cali Warsame oo muddooyinkii u dambeysay la xiriirinayay inuu ku lug lahaa iyadoona ganacsadaha lagu dhaariyay madashaasi ayna ku qanceen ehelada marxuumad Saada Cali Warsame odayaasha iyo waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadan dhaarinta ah ayaa dhankooda sheegay in wax walba oo tuuna loo baahan yahay in la xaliyo lagana fogaado wax walba oo isku dhac keenaya Maxamed Siciid iyo Sambuur mid kaayana inaan waxba qabin annaguna waa isogeyn ilaahna waa nooga ummaduna waa ogeyd haddana waxa propaganda ah ee waxa weeyaan ishaacaadka hari waayay sidii loo soo afjari lahaa ayaanu u nimi oo halka u nimi alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana way soo gabagabowday waad naqlayseen dhaartii dhacdo konton dhaarood ah oo runtii dhaarmaydahayd sharcina ah waxaan rabnaa in la qanco arintaas inay soo afkooda u baahannahay oo inteeda joogta goob joog ahayd iyo labada ardaa waxaan leenahay wixii meesha ka dhacay marxaati baynu ka nahay qiyaamahana waa la soo taagayo waa dhacaysa waana goob joogna waa ka ahayn arintaas waa inay soo afkooda oo halka ku dhamaata oo ninba wuxuu yiri gardabeed guguuda nacay inaan wax dambe soo bixin iyo sheekooyin dambe aanay soo bixin si wanaagsan oo sharaf laba noogu dhacay cuqdad baan ugu jirtay waan xanuunsanaynay dilay kule beesha Sambuur baan u bugnay hadda way naga baxda waan ka bogsanay ilma Cali Warsame ana u weyn waa ila qaban iyaguna waa ku qanceen waxa weeye si wanaagsan baan ugu qancnay si wanaagsan baan hadii kule arintaas inoogu dhacday tii awal horeba waxaan sayn dad baa idin ku soo gabanaya saalo marxuumada ku soo gabanaya dadkii ku soo gabanayna de ka bixbaan u maleynaya maanta waxaan halkan anagu marxaati kaga nahay labada beelood ee Sambuur iyo Khalid inay arintii tashuuska ahayd ee la soo dhaxgeliyay ay shariicada islaamka isla qaateen xaaji Maxamed Siciid Dahabshiil oo shariicada islaamku konton wala dhaarmayday kaga dhaarisay Saada Cali Warsame annaguna marxaati baanu ka nahay taa markaan ka gudbo Saada Cali Warsame Allah u naxariistay waxay ahayd fanaanad Soomaaliyeed idinkay nooga waxtar badnay xagga taariikhdana waxa weeye madaxnimadana waxay ahayd qaran xildhibaanad qaran Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan halka uu Maxamed Siciid ducaaleeyay ganacsadaha Soomaaliyeed ama Afrika bay anaga loo joogto iyada madaxweyne noo ahayd muddooyinkii u dambeysay waxay saxaafaddu aad u hadalhaysay kulan dhex mari doona Maxamed Siciid Dahabshiil iyo qoyska ay ka soo jeedo marxuumad Saada Cali Warsame kaasi oo lagu soo afjaray tuhunka kala dhex galay labadaasi dhinac iyadoona uu Maxamed Siciid Dahabshiil uu sheegay in uu bari ka yahay kululaashaha kiiskii lagu dilay marxuumad Saada Cali Warsame Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Laascaanood